كورن برشاد علمي قاعد برتي يفهم كدينت أد فهمتي بوقت أد كقرتي هدي أي نقدان متكم من ناقف حقته مركي أد نوشة ملايين قداش إيمان دونت مرجع مذهب الأي كدكتان حكومة دي أد كحستي بوقت هذا وحن كهل لا وإمام إن بدن أي نجم ده مذهب كيس عن كل قنو وأنا إمام الشافعي أنا حريص إمام الشافعي هو ها حتى يتير وين أو صومري تاريخ المسلم كا وحن كبرك لنا نشيس إمام الشافعي هو وحوها قفلنا الأخرسكا وحالها بشهر رمضان وحو أخرين جري القرآن وحو لمن جري لحدا جر سؤال أنكو دين داودي markii ugu badnaa ee quraanka aad dhameysay meeqa jir ahayd toban ma dhaafaysaa mise toban way ka yartaa mise qatara tahay maasha allah waxaa jira marka qisa dhex martay asaga iyo macalinkiisa wakic maalmaha kamid wuxuu ku dhahay wakic sidoo kale meenka wuxuu ahaa gabayaa wuxuu ku yiri marka shakawta ilaa wakiicin suu xifdi faashadani bitarki almacaasi waqaala lahu alcilmu nuurun wa nuuru llahi laa yuhda alcaasi wuxuu yiri macalinkii wakic baa wuxuu yiri wakic markaan wax xifdiyo markaan banaanka baxo wixii waa iluwa markaas wuxuu ku dhahay cilmiga waa nuure ku dhagno macnaha ala kacabsi ku dhawo tixdaas uu bariyay okay waxaan ka baranaynaa mar walba ilaahay u dhawaano in cilmigu noo fududaana waxaan jirta ayad quraan oo ka hadlaysa intaas ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wattaqullah wa yu'allimukum allah ilaahay kala alla saga idin baray cilmiga allah saas kala sama imaam shaafici wuxuu ahaa qof hami iyo hamuun badan u qabo barashada cilmiga wuxuu gari jiray safar dhaadheer si uu cilmiga u soo barto oo u soo aruuriyo mar walba cilmigiisa u ziyaadiyo wuxuuna ahaa macallin imaam waqtiga u noolaa sidoo kale xikmado badan ayuu ka tagay imaam shaafici xikmadahaas oo maanta dhiirigelin noo ah oo nolosheena aan cuskano maalmaha kamid ah waxa la imaam shaafici wuxuu soo galay masaajidka abi xaniifa maalinkuu dhimanayay baa waxaa dhashay imaam shaafici oo nolosha iskuma soo gaarin marka maadaama madaahibta waxyaalo badan ay ku kala duwan yihiin maalmaha kamid marka masaajidka abi xaniifa ku tukanay imaam shaafici markaas wuxuu u tukadaa Allah sidii imaam xaniifa u tukan jiray imaam shaafici asaga madhabkiisa shaafici waa mugtaa abi xaniifa waa madhabkiisa markaas salaad buu ka baxaa waxa lagu yiri imaam shaafici waa tii aad diidaneed madhabkan xaniife ma qaadato macnaha markaas wuxuu yiri waxaan ka xishoonayaa anoo masaajidka abi xaniife ku jiro inaan khilaaf dhanka kale soo kale wuxuu ahaa aabba leh xaas iyo caruur wiilkiis ugu weyn wiilasha waxaa la sheegaa inuu ugu doonaan jiray dhanka fiqiga wuxuu ka baran jiray cilmiga wuxuu ka baran jiray imaam Ahmed bin Hanbal maral markii hooyadiisa waxay leedahay wariyaha hooyada aabaha aadid oo aabaha cilmiga ka baratid maxaa qof kale u aadaysaa imaam shaafici wuxuu jirtaa wiilkayga meel kasta cilmiga haduu macnaha cilmi baranayo mashruuc ka barto madhabku rabo haraaco muhiimadu waxa waa in uu cilmiga diinta u barto mar walba hooyis ay canaanato oo aabiis ay u sheegtay wuxuu dhigi jiray muhiimadu waa inuu cilmiga diinta bartay ugu dambeyn waxa la dhahaa wiilka asaga ayaa ku soo laabtay madhabkii aabihii ee madhabka shaaficiyada